hawlo la qabto waxa ugu wanaagsan fulinta wixii eebba ku faray, ka dheeraanshaha wixii eebba kaa reebay, iyo ku kalsoonaanta waxa eebba agtiisa ahaaday. had iyo jeer samee sida ugu fiican. waxaad hadda beerato waxaad goosan doontaa maalin kale. fashilitaanka dadka kale kuma loodi karaan marnaba, mar hadday bardhamaadka guushaadu ay tahay mid aad u xoog badan. ma aan guuldarraysan ee keliya waxaan helay kumanaan waddo oo aan ku shaqaysan karo. guuldarradu waa kaliya fursad labaad si aad mar labaad u bilowdo, balse markaa la imow xirfadtii hore ka beddelan. guushu waa naftaadoo aad jeclaato, waxa aad samaynayso oo aad jeclaato, iyo habka aad u samaynaysid oo aad jeclaato. guushu ma aha inta lacag aad samayso, ee waa farqiga u dhaxeeya dadka nolosheeda waxa aad ku samayso. si aynu u guulaysano, ugu horrayn waa inaynu aaminaa inaynu guulaysan karno. marka ay kuu caddahay inaadan yoolkaaga gaari karin, ha beddelin yoolka ee beddel waddada aad u marayso. guushu ku imaamaysa marnaba, ee waa inaad adigu ugu tagtaa lugahaaga. hal fura oo muhiim u ah guusha waa kalsoonida. hal fura oo muhiim u ah kalsooniduna waa diyaargarowga. waxa ugu weyn ee hortaagan guusha waa cabsida guuldarrada. ma aqaan furaha guusha, laakiin furaha guuldarradu waa isku dayda qof waliba inaad raali geliso. dadka ka cabsada guuldarrooyinka marnaba ma dhadhamin doonaan farxadda guusha. waxaan soo guuldarraystay marar badan, taasina waa sababtaan u guulaystay. weliga ha soo hadal qaadin guuldarro, adeegso erayada ay ka mid yihiin rajo, rumaynaya, iimaan iyo guul. dhammaan riyooyinkeennu waxa ay noqon karaan run haddii aynu ku dhiiranno inaynu raacdaysano. marnaba ma beddeli doontid noloshaada ilaa aad beddesho waxyaabahaad maalin walba samaysid. sirta guushaadu waa inaad hesho waxyaabaad maalin walba u samayso si joogto ah. anigu ma aaminsanin qaadashada go'aan saxan. waxa aan qaataa go'aan kadibna waxaan ka dhigaa mid saxan. sirta ka dambaysa inaad hore u socoto waa tallaabadoo aad bilowdo. waa inaad yeelataa yool ujeeddo fog si aad isaga ilaaliso inaad ku jaawararto guuldarrooyinka yaryar. qofka la imaada fikir cusub waa lala yaabaa ilaa iyo intuu fikirkiisu ka guulaysanayo. dambaalkan u dirayo dhallinyarada waa in ay yeeshaan dhiiranaan si ay ugu fikiraan si ka gedisan sidii hore.
filashooyinka sareeya waa fura samaynta guushaada iyo xalka gaarista noloshaada.